الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. walaalyaal assalaamu calaykum waraxmat ullah. waxa aan jeclahay maanta inaan si kooban uga hadalno arintaa ka dhacday badda cad ee u dhaxaysa dalka Masar iyo Talyaaniga. arintaas oo ay ku geeriyoodeen dhalinyaro ka socota dhulka ay degan yihiin dadka Soomaalidu bariga Afrika. dhalinyaradaas oo ah dad qalbigeena iyo beerkeena ka soo go'ay, ubadkii aan dhalay, haween iyo rag ba iskugu jira, dad aad u yaryar, dad aad u waaweyn, kuwa dhexa intaba ay ku jiraan. arintaas waxaan ka qoray laba maqaal oo aan dhigay boggayga Facebooka. maqaal wuxuu ahaa mid ka jawaabaya arintan maxaa keenay, halkay ka imatay, maxaa sabab u ah. arintan markii ay dhacday ma maanta ugu horeysa way soo jirtay, halkay ku socotaa, iyo ka faa'iideysanaya, sida loo xalinayaa, si cilmiya oo kooban baan uga hadalnay oo methodologiga scientifiga waafaqsan. arintaas waxay ahayd mowduuca aan u bixiyey markii aan Facebooka boggayga ku qoray. waxaan u bixiyey ubadkeenu maxay uga baxsanayaan dhulkooga ay u tagayaan dhul kale. laakiin laba cisho kadib anoo gurigeyga fadhiya ayaan dhageystay baaq ka yimid hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Hargeysa. hooyadaas markii aan dhageystay waxay ahayd habeenkii ay soo galaysay Arbaca, salaadii fajri. markii aan tukaday kadib ayaan maqaal qoray labaad. maqaalka labaad wuxuu ahaa mid laabtayda iyo qalbigayga ka soo baxay. waxaan u bixiyey markuu waqtigu istaagay, markuu waqtigu hadal beelay. hooyadaa markaan dhageystay waxaan xasuustay hooyaday, waxaan xasuustay hooyo wal oo Soomaaliyeed oo degan dhulkeena. arintaa waxay igu abuurtay maqaalka inaan qoro. dad fara badan baa dalbaday inaan turjumo, laakiin ma turjumi karayo maxaa yeelay caatifadii aan ku qoray iminka ma hayo. waxa weeyaan walaalayaal, hooyadaa markii oyday ee ergagaxday, uu waqtigu aamusay, uu xishooday, uu qalinku engegay, uu khad beelay, uu wax qori kari waayey. marka halkaa aan gaadhnay, hooyadaas waxay dirtay baaq. baaqiygu waxay u dirtay dad aad u fara badan. waxaan u malaynayaa inay noqon karaan dadka u dirtay baaqa hooyadu 6 qolo. laakiin dadkii u baaqa u dirtay ma maqlayaan hooyadaa mise ma maqlayaan? su-aasha waxaa ka jawaabi doona iyaka. laakiin baaqa hooyada waxaa ku jiray walaalayaal, marka ugu horeysa waxaa ku jiray inuu qalbigeenu engegay, waxaa ku jiray inuu damiirkeenu dhintay, waxaa ku jiray inay dadnimadu inaga guurtay, waxaa ku jiray inay dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti maamula ay fashilmeen, waxaa ku jiray inaan dhammaanteen culimo iyo caamo aan ku fashilanay inaan abuurno
dowlado ummadooda deeqa oo dadku ay ku raaxaystaan. waxa weeyaan waxaan aad uga naxay oo la yaabay wadaado aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo cambaaraynaysa ubadka yar ee wax dambi oo galeen aysan jirin. ubadka yar maxaa ku kadeeday inay ka soo baxsadaan guryahoogii? kama hadlayaan ubadka yar yar. maxaa u diiday inay fadhiyaan dhulkoogii? kama hadlayaan. iyaa ka qaatay xaqoogii. waxay leeyihiin dhalinyaradaasi way qaldan yihiin. anigu arrintaa ma qabo. dhalinyaradaasi ma qaldano. dhalinyaradaasi waa daxiya, waa raq. waxay raq u yihiin nidaamka siyaasadeed ee wadanadeena ka jira. dictateer ayaa maamula Jabuuti, dadka gaajo ku dilay, dadku inay yaacaan ku qasbay. Soomaaliya dowlad la'aan baa ka jirta dhul badan. waxaa ka jira dagaalo sokeeye. waxaa ka jira shabaab iyo xarako qofkii ka soo horjeeda leynaysa. waxaa ka jira shaqo la'aan iyo gaajo. waxaa ka jira dhibaatooyin dhalinyaradu aynan u adkeysan karayn. marka waxay u baahan tahay mawduucan marka laga hadlayo in 4 meelood laga eego. waa marka ugu horeysa sababta keentay waa in la baadho, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, iyo ugu dambeyn faragelinta siyaasadeed ee dalkeena lagu hayo ee dibadeed. 4taa waa in la baadho. 2 waa in la doondoono solution iyo xal. maaha in dadka la waaniyo oon afka laga hadlo. dhalinyaradu ha bixina, dhalinyaradu fadhiya. hadalkaasi dadka ma deeqayo. fatwo badan oo culummadu ay soo saaraan dadka wax uma tarayo. xadiis fara badan dhalinyarada ma deeqayo. lianna horey baa loo yidhi calool gaajoonaysa dhegtu waxma maqasho. sawtu lmacida aqwa min sawti damiir. qofku horta wax sii markaasuu ku dhegaysani. marka waxaa la rabaa inaan mushkiladda la xaliyo ee maaha inaan dhalinyarada la cambaareeyo, bal culummada qaarkood ay ku tilmaamaan inay isdilayaan oo muntaxiriin ay yihiin. arrintan waxay u baahan tahay inaa baadhis kale loogu noqdo. dadku ma isdilayaan mise waa la dilayaa? dadku ma islaynayaan mise waa la laynayaa? dadku may baxsanayaan mise waa la eryanayaa? inaan baadhnay u baahan tahay. laakiin walaalayaal, hooyadii oyday ee qalbiga ka oyday ee dhiigga oyday inay dhammaanteen qalbigeena taabato weeyaan. waa inaan joogsanno weeyaan. waa inaan joogsanno haddaan nahay marka koowaad culumo, aqoon-yahan iyo wadaado. 2 su-aalood waa inaan isweydiino. dowrka aan ka ciyaari karayno in aan arrintan wax ka qabanno maxay tahay? 2 dowrkaa markaan isla fahanno sideen u galnaa dowrkeenna oon u gudanaa haddii aan nahay culumo iyo aqoon-yahan iyo wadaado. arrintaas uma baahno dadka in loo xadiiso qura, umana baahno in dadka fatwo loo soo saaro oo qura. waxay u baahan tahay in solution diinta islaamka laga soo saaro. 2 hooyadaa oyday waxay la hadashay dadka aan loo yaqaano fadhi ku dirirka, maqaaxiyaha fadhiya, ee la hadlayn, ee ka hadlaya, ee markay shaaha cabayaan ku qosqoslaya. hooyadaa oyday Kanada jooga, Maraykan jooga, Yurub jooga. waxay niga leedahay hooyadaasi halkaa aad joogtiin wax ka soo tara dadkiina soo yaacaya. marka waxay iniga baahan tahay fadhi ku dirirow iyo maqaaxi ka dirirow. hooyadaa oyday way kula hadashay hadduu damiir kugu hadhay wey. hooyadan oyday waxay la hadashay ragga kuraasida ku dul fadhiya madaxda sheeganaya. hadday xukumaan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo hadday xukumaan dhulka kaleeta ee Soomaalidu ay samaysatay, Puntland iyo wixii kaleeto oo dhan oo walaalaand ah, iyo jamhuuriyadda Somaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti.
dadka dhintay meelaha bay kaga yimaadeen. madax baa tahay, mashaariic beena looma baahno, hadal dadka lagama iibiyo, hadal qurux badan ummadda ha ka iibinin inaad adigu qosashid ciyaalkaagiina ay dhintaan, islaamaha aada madaxa u tahayna ay ooyaan. waxaa lagaga baahan yahay inaad solution keentid. nin madaxaa tahay, haddaad keeni kari weydina oo dadkaagi ay badda ku dhimanayaan waa inaad tirahdid waan fashilmay. muxuu kuu tarayaa kursi aad dul fadhidid oo ummaddii ay gaajo kuga hoos dhimanayso? maxay ka dhigan tahay kursi weyn ood ku raaxaysatid iyo dhar waaweyn oo sitid iyo baaburo waaweyn oo dekadaha la martid oo hooyadii ay sidaa u ooyeyso? waa hooyadii ku dhashay, waa hooyadii i dhashay, waa hooyadii ina dhashay weeyaan. qolada afaraad ay la hadashay hooyadan waxay ahaayeen ragga maalqabeennada ah ee xoolaha farabadan ka urursaday ummadda, ee ku dacdaacaya xamar dhexdeeda, amba ku dacdaacaya Soomaaliya koonfurteeda, amba Somaliland, amba Djibouti. dadkaa dhimanaya xoolihiina waxbay ku leeyihiin. ilaahayna qur-aankiisu ku sheegay waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum. dadkaa aamusan iyo dadkaa hadlaya maalkiina waxay ku leeyihiin xaq la yaqaan, zakay ku leeyihiin. hadday zakadu deeqi weydo maalka xaq kale ku leeyihiin ilaa ay gaajadu baaba'ayso. waa inaad la dagaalantiin ood xalal keentaan. inaad ummaddiina ininkuna aad haysataan milyaaro lacaga iyakuna ay badaha ku dhintaan waa xaaraan weeyaan. waan ognahay maalqabeennada afka Soomaaliya ku hadla waxay abuuri karaan boqolaal shaqo, laakiin uma soo jeedaan. waxayna abuuri karaan dowladnimo, laakiin uma soo jeedaan. kuwaabay la hadashay hooyadu. hooyadu oyday waxay la hadashay qolada shanaad ay hadalkeyga u soo jeedisay dhalinyarada baxsanaysa ee ordaysa ee badaha ku dhimanaysa. walaalayaal, aad baan inay jecelahay. ubadkaygaa tihiin, qaahiraad fadhidaan, habeen kasta ay la soo hadashaan. waan jecelahay. wax dembiyo nigu haysta ma jiro. anigu inigama lihi ininkaa dembi leh. waxa inaga soo saaray waan ogahay. dhalinyaro fara badan oo Paris jaamacadda ka dhiganayso reer Djibouti ayaan kula kulmay magaalada Belgium, Brussels, Canada kula kulmay, Ottawa, Montreal, Toronto. waxay wada sheegeen dhammaantood inay Djibouti ku noqonin ay ka soo baxsadeen. kuwa kaleeto oo Turkiga joogay oo jaamacadaha loo diray, Soomaaliya ay dirtay, dowladdu ay dirtay baan kula kulmay Brussels, kula kulmay Yurub. waxaan ku idhi maxaa dalkiina uga imateen Sweden, Denmark, Norway. ummad baan soo diratay. waxay dhahdeen laba baan haddaan noqono heleena in ay dhalinyarada wax qarqarxinaysa ay meel lagu qarxiso iyo inaan shahaadooyinkan waaweyn maqaaxiyaha la fadhino. marka qaraarkan baan qaadanay. idan waan ogahay dhibaatada inay haysataa, laakiin walaalayaal, ubadkaygiyo waxaan ogahay in ummad walba dhalinyaradoodu ay dhisaan. xaqiina ma ahayn inuu jiro badda. xaqiina wuxuu jiraa gudaha dalka. waan dhisi karnaa dalkeenna haddii aan la imana fikrado cusub. dhalinyaradu iyadaa abuurta, dalkana badbaadisa, ummadoodana badbaadisa. hadudina, ha baxsanina, badaha ha ka tallaabina, laakiin han la imana fikrado cusub oo aan leenahay dalkayaga ayaan ku laamaynaa, xal baan la imanaynaa, ummadana waan badbaadinaynaa. hooyadaa way kula hadlaysay, hooyadaa ooyeysay ee boqolaalka kun bixisay ee lacaga, laakiin ku gabagabaysatay in gabadhii yareed ee dhashay ay ku tiri dibadda tag, noolow, anigana ay soo noolee. inay ku dhammaatay inay noqoto gabadhii yareyd caloosha kalluun rubama inay ku dhexdhacday, ambase ay qabri ka dhigatay badda, iyadoo marag ka noqon doonta ilaa qiyaamaha foolxumada dhulkeena ka jira.
dulmiga madaxdeenna, tugnimada bayac mushtarkeenna, aamuska culimmadeenna, iyo weliba ummaddan hurdada dheer ay gashay. hooyadan miskiinadda ah carab bay la hadlaysay, aaway carabi waxay u gacan gashay yahuud iyo bershian iiraan, iyadaa isdoondoonaysa. hooyadan miskiinaddii waxay u dhawaaqaysay dadka muslimiinta ah, aaway dadka muslimiintu iyo kiibaa isla. hooyadani waxay u ooyeysay, ay u dhawaaqaysay bini aadan oo iisoo gurmaday lahayd. mayse ogeyn hooyadani in adduunku isku raacay inuu Soomaali baabi'iyo. Soomaali tol ma leh. Soomaali waxa u tola iyadaa isku tola, laakiin goormay ogaan doontaa inay Soomaali isku tol tahay walaalayaal? goormaan ilaahay ka cabsoon doonaa? goormaan soo noqon doonaa? oon ka soo noqon doonaa beenta? kursigu waa been weeyaan walaalayaal. kursigu waa been hadduunan keenayn maslaxad. kursiga waa been hadduuna keenayn deganaasho. kursigu waa been haddii aad u shaqaynaysid isticmaar ood ummadaada ka shaqaysanaysid. kursigu waa been hadduu jeebkaagu naaxay ummadaaduna ay gaajoonayso. shalay markuu kampaaniga ku jiray Ismaaciil Cumar wuxuu yidhi ubadkayga qof bad buu ku dhintay leega yidhi ma maqal. subxaana allaahi alcadiim. maanta waxaa ku jira dad 10 qof ka badan oo reer Jabuuti ah. waxaa kaleeto oo jira cajilada iska soo duubeen iyagoo badda sii socda reer Jabuuti oo ay kusii jeedaan xeebaha Talyaaniga. markay maraakiibtii badbaadinaysay arkeen iyo iska qabteen ay soo dhigeen Facebook oo daawateena. marka rasuulku wuxuu yidhi haddaad xishoonin waxaa doon iska samee. dadka been laguma dhaqo. ilaahay iyo nebigiisuna hore inoogu sheegeen 3 inay jannada gelayn, ilaahayna soo eegeyn. waxaa ka mid a nin madaxa oo ummadiisa been u sheegaya, madax dadkooga been u sheegaya, wax aan jirin uga waramaya, iyadoo la gaajoonaya farxaya, iyadoo la dumayo qoslaya, iyadoo la qaxootiyoobayo daansaya oo ciyaaraya. diinta ay leeyihiin baan isweydiinaynaa iyo dadnimada ay leeyihiin. hooyadaa oyday ninkay ku oysiin weyday damiir ma leh. hooyadaa oyday ruuxa la ooyi waayey bini aadan ma aha. iska daa inuu islaam noqdo iyo inuu ilaahay yaqaano iyo inuu nebi maxamed yaqaano iyo inuu dhimanayo garanayo aakhira la soo saari doono. bini aadannimada ka maqan. 200 qof oo badda ku dhimatay iyaan dareemi weynay. maanta waxaa ahayd magaalada Muqdisho in laga gadoodo, la sara kaco, la shiro oo la isweydiiyo ayna khalal halkee dhibaato ka dhacday. Kismaayo la iska dhex weydiiyo magaalooyinka Puntland oo dhan. Hargeysa la iska dhex weydiiyo Somaliland caasimadooda. Djibouti la iska weydiiyo. baarlamaanadu inay shiraan bay ahayd, ay madaxda u yeedhaan, ay la xisaabtamaan bay ahayd. inay jaraa'id ku aamusin bay ahayd. masaajidda in laga dhawaaqay ahayd. meel wal uun joogno inaan hadal la ahayd. ma hada samt aamuskan muxuu ka dhigan yahay? ummaddu marka ay isdareemi weydo ay dhimato haddeeto laa xayaata liman tunaadi. nolol kuma jirto dadkaa la hadlaysid bay imanaysaa. walaalayaal, shacbi weynaha afka Soomaaliya ku hadla, adduunka meel kastood ka joogtaan, geeska Afrika 5 wadaneed ka degan tihiin, waxaan idin sheegayaa waa dabargo-aysiin haddaad isgaari weydiin. waxaa idin dabargoynayaa abaaro, waxaa idin dabargoynayaa cadow, waxaa idin dabargoynaya diin la-aan, waxaa idin dabargoynaya malaayiin dhalinyaradiina oo Yurub iyo Ameerika tegi doonta, waxaa idin dabargoynayaa meeshaa degan tihiina dad kale soo degi doonaa, waana ila bedeli doonaa. gurmad baan leeyahay hadalkaygaas ilaahay dartii baan ila hadlayaa. han dhaqaaqno, han iska ilowno xuduudahan beenteen samaysanay, han iska ilowno xisbiyadan beenteen ku kala jirno, han iska ilowno ururi diiniyeedkan waxba ay ka jirine iska samaysateen, kana salafa iyo kana ikhwaana iyo kana tabliiqa iyo kana suufiya. waxaa tihiin dad laba shay ku walaaloobay: laa ilaaha ila allah islaamnimo
iyo afkaan ku hadlayna afka Soomaaliga haddii labada ina deeqi weydo wax kaloo ina deeqi doonaayo ma jiro waxaan dibadaha ka soo qaadateen inniku maad lahayn dad kale inii keenay diinta islaamka oo saxaabadii noo keeneen unbaa dhaba waxa kaleetoo dhan jawaabka lagala soo baxay walaalayaal macna ay leedahay ma jirto maanta waxaan nii sheegayaa hooyada oyday taariikhdeena ha bedisho hadday bedeli weydo 200 oo dhalinyaro ah oo maalin walba ku dhimanaysa waxay ii sheegaysaa inaan nolosha ka guurnay inaan geeriyoonay inaan dhimanay inaan taariikhda ka baxayno ummaduhu taariikhda way galaan wayna ka baxaan waliba culimada qaar baa dhahaya taariikhda ma lagu soo laami karaa waa maya weeyaan 3 arrimood baan kaga baxayaa kow culimada waxaanu sheegayaa walaalahay sheekhadeydii weeyaan fatwada badan hal iska joojiyo walaalayaal fatwada badan hala joojiyo xal la keen xal culimada xal baa laga rabaa culimada islaamku ilaahay uguma talagalay dadka inay u sheegaan xalaal iyo xaraan waxa loogu talagalay dadka inay hogaamiyaan solution keenaan quraanka lagu laamo xadiiska lagu laamo laga soo saaro hab nololeedka loo baahan yahay maanta labo waxaan la hadlayaa dhalinyarada mustaqbalkeena ka iska leh in li waalin in li wareerinin in been li sheegin xaqiina rita karita kuwa beenta inii sheegaya qofna ka cabsoon aan ilaahay ahayn subhanahu wa ta'ala hadudina hana baqina tala waxaan leenahay hal la iman fikir cusub oo ku badbaadino dalalkeena farahayna ka baxayaan way inaga wareegayaan taasina waa dhalinyarada saddex waxaan la hadlayaa wax weeyaan raga maal qabeenada xoolaha badan haysta waan ogahay lacagta bariga Afrika taale adduunka meel ay taala ma jirto laakiin waxay ku jirtaa jabab dad aan naxayn masaajida safka hore ku tukada ilaahay ka baqa iska dhiga amrada ku noqnoqda xashkana aad u taga wadaadadana qaar kala saaxiiba laakiin shacbiga aan la saaxiibahayn xoolahaaga hadduu faqiir ku gaajoonayo macna ay leedahay ma jirto xoolaha inta badanna waan ognahay dariiq sax laguma keenin maxaa yeelay burburka Soomaaliya laga faa'iideystay iyo nidaam xumada dalka Djibouti ka jirta kuwaasina ilaahay ka baqaan saddexda qolo way badbaadin karaan dadka iyo dalka iyo diinta intaba madaxda maxaanu la hadli waayay madaxdu nolol male kursiba u muuqda mar uun madaxweyne idhe kama tagayo weeyaan kii ka tagana uu ku soo laamaya kii ku dul fadhiistana lagama kaxayn karayo ilaa aan ka bislaanayno walaalayaal oo aan noqonina dad dawladda dhaba dhisan karaya waxaan ku leeyahay hooyadii aadka iiga ohisay hooyo qof nool baa tahay qof jirtaa tahay ilaahay u naxariisto gabadhaadii ilmihii ay dhashayna shafiic alwaalidiin ilaahay niga dhigo ha u naxariisto dhammaan ubadkeeni inaga dhintay ay baddu inaga liqday waa shuhado weeyaan waxay shuhado ku yihiin bad baa liqday gaajo ka baxsanayeen cadow bay ka baxsanayeen gaajo cadow weeyaan gaajadu waa cadow dagaalku waa cadow dictatorkuna waa cadow bay ka baxsanayeen nolol bay doonayeen way dhinteen aakhiray tageen maan jeclayn inay dhintaan yaa laytahum ma maatu inay dhintaan maan jeclayn inay noolaadaan baan jeclayn laakiin ilaahay lahaabaa qaatay waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta yowma alqiyaamaha iyakoo shuhadaa uu noo soo saaro annakana uu sabir naga siiyo waan salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh